haatan akhbaaraadkii dibadda. feeryahankii ugu caansanaa caalamka ee ciyaaraha feerka ku caanka baxay ee Maxamed Cali Kalaay oo ahaa nin muslim ah ayaa ku geeriyooday dalkaasi Mareykanka. Maxamed Cali Kalaay oo ah nin ku caan baxay ciyaaraha feerka marar badanna ku guuleystay ayaa ku geeriyooday gobol ku yaala dalkaasi Mareykanka. Maxamed Cali Kalaay ayaa da'diisa ahayd 74 sano jir waxaana xaaladiisa caafimaad barihii dambe ay ahayd mid laga deerinayo. waxaa haleelay xanuun ku dhacay sanbabaha iyo neef mareenka jirkiisa wuxuuna xanuunkaasi ku dhacay Maxamed Cali Kalaay oo ahaa nin muslim ah oo maanta ku geeriyooday dalka Mareykanka sanadkii 1984 afar sano kadib markii Maxamed Cali Kalaay uu ku guuleystay ciyaaraha feerka. Maxamed Cali Kalaay ayaa ku dhashay gobolka koonfurta dalka Mareykanka wuxuuna muslimay sanadkii 1964 maanta ayuuna ku geeriyooday dalkaasi Mareykanka. intaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa warka caalamka ee telefishinka Universal oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho. warka waxa idin aqrinaya anigoo Cabdi Casiis Ibrahim Axmed ah. tan iyo kulanti dambe intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.